وعن داوديال halkan warbaahinta Hiiraan online ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaan waxa ka mid noqon doona xukuumadda federaalka Soomaaliya oo bilowday mideynta nidaamyada dawladda gudiga dawladnimada danabeysan ee u dhawaan magacayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa yeeshay kulankoodii ugu horeeyay iyadoo diiradda saaraya qorshaha dawladda ay ku wajahayso dhismaha nidaam casri ah oo gabi ahaanba ku saleysan digitalka kulanka oo gudoominayay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Maxamed Aadan Macalin ayaa si qoto dheer ah loogu falanqeeyay sidii loo mideyn lahaa nidaamyada dawladda loo dhisi lahaa kayd xoogeed oo midaysan loona dardargelin lahaa adeeg bixinta casriga ah ee ku dhisan tiknoolajiyadda kulanka waxaa ka qayb galay wasiirada maaliyadda qorsheynta waxbarashada ganacsiga caafimaadka shaqada amniga iyo arrimaha gudaha iyadoo sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya mas'uuliyiinta ayaa isku raacay in muhiimad gaar ah ay leedahay in la helo hanaan mideeya xogaha dawladda si loo fududeeyo helitaanka macluumaadka iyo adeegyada ay u baahan yihiin muwaadiniintu kulanka ayaa sidoo kale lagu lafaguray dardargelinta habraacyada maamulka casriga ah kobcinta wada shaqeynta waxbarashada ku lugta leh nidaamyada dawladnimada danabeysan iyo xaqiijinta daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka hay'adaha dawladda gudiga cusub oo qayb ka ah qorshaha dawladda ee casriyeynta maamulka iyo adeegyada ayaa lagu wadaa in uu hogaamiyo isbedel lagu mideeyo nidaamyada dawladda loona abuuro hanaan hufan oo digital ah golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar ay Mareykanku diyaariyeen oo taageeraya qorshaha 20 qodob oo madaxweyne Donald Trump u dejiyay xasilinta Gaza kaas oo lagu dhisayo ciidamo caalami ah iyo hay'ado ku meel gaar ah oo maamuli doona dib u dhiska Gaza Soomaaliya ayaa ka mid noqotay 13 dal ee u codeeyay qaraarkan iyadoo aan la diidin halka Ruushka iyo Shiinahana ay ka aamuseen wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya weli faala kama bixin sababta ay u taageertay qaraarka balse go'aanka Soomaaliya ayaa qayb ka noqday taageerada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu hirgeliyo qorshaha xasilinta Gaza oo ay dalal badan ay qayb qaadanayaan qaraarkan ayaa dhigaya in ISF ay la shaqeyso Israa'iil Masar iyo ciidamo boolis ah oo Falastiini ah oo si gaar ah loo tababaray si loo sugo xuduudda Gaza loona hubiyo in hubka laga dhigo kooxaha aan weli dawliga ahayn oo ay ku jirto ururka Hamas sidoo kale waxaa la dhisayaa Brand of Peace oo maamuli doonto maamulka ku meel gaarka ee dib u dhiska Gaza iyo gargaarka bini'aadanimada waxaana maalgelinta qaadanaya sanduuqa uu ka faal qaadayo bangiga adduunka Soomaaliya waxa ay u codeysay qaraarkan iyadoo dalal kale oo muslim iyo carab ah ay ku jiraan Masar Sacuudiga iyo Turkiga ay si muuqata u taageereen in la ansixiyo si loo dhiirigeliyo xabad joojinta ka dhaqan gasha Gaza isla markaana mar walba dadkaasi ay ku noolaadaan nabad iyo xasilooni ansixinta qaraarkan ayay mid xilli qaramada midoobay ay sheegtay in loo baahan yahay in qorshuhu uu u gudbo tallaabooyin dhab ah oo markaasi guud ahaan mideyn kara wararka imaanaya gobolka Mudug iyo sidoo kale gobolka Bakool ayaa sheegay in howlgalka dhinaca kooxda Al-Shabaab ay ciidamada deegaanka Macuusleyda iyo kuwa dawladda ay ka fuliyeen tuulooyin ku yaala labadaasi gobol xaradheer oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa lagu soo waramayaa in habeennimadii xalay lagu qaaday howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada Macuusleyda oo ka howlgala halkaasi wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ugu yaraan 6 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgalka iyadoo sidoo kale tan ay sheegtay in la soo qabtay hub oo ay ku jiraan 4 qori AK47 ah iyo saanado kale oo military oo muhiim ah dhinaca kale ciidamada dawladda ayaa la soo warinayaa in ay ka hortageen weerar lagu bartilmaameedsan lahaa deegaanka Dabagalo oo 35 kilomitir u jira xaradheere dhanka waqooyi galbeed dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weeraradaasi uu ku socday meelaha ay ciidamada iyo shacabka deegaanka ku sugnaayeen gobolka Bakool hadii aynu eegno waxa iyaduna ka dhacay wadada isku xirta Garasweyne iyo sidoo kale Moorgaabe
oo 35 kilomitir galbeed kaga beegan degmada Xudur waxa halkaas lagu beegsaday xubno ka tirsan kooxdaasi war-saxaafadeedka dowladda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in 5 xubnood oo ka tirsan al-shabaab halkaas lagu dilay kuwaas oo la sheegay inay ku jiraan horjoogayaal muhiim ah ciidamada ayaa sidoo kale sheegay in ay soo heleen 2 qori oo AK47 ah iyo sanad ciidan saddex ka mid ah dadka la sheegay in ay dhinteen howlgalkan ku dhinteen ayaa lagu sheegay magacyadooda Ibrahim Caliyow Maxamed Macalin Aadan Maxamed Same Cabdullaahi Aadan Dheere ugu dambeyntii Puntland ayaa dadka ku nool tuulooyinka ku dhow toga baalde u qabatay 7 maalmood in ay ka guuraan deegaanka si ay u goyso sahay lagu eedeeyo inay gaarto ururka Daacish oo la sheegay in ay mararka qaar dadka deegaanka ay ka helaan raashin iyo xoolo nool hay'adaha amniga ayaa ku eedeeyay dadka ku nool deegaanka tasjiic in ay la macaamilaan Daacish iyagoo sheegay in dawladdu ay ku qasban tahay inay qaado tallaabo looga hortagayo in ururkaasi uu helo sahay ay ku sii shaqeeyaan oo ay ku sii noolaadaan ciidamada ammaanka ayaa dhawaan xiray rag iyo dumar lagu eedeeyay in ay raashin iyo badeecooyin kale u geeyeen Daacish kuwaas oo sidoo kale la tilmaamay inay door muuqda ka qaadanayaan taageerada ay siinayaan kooxdaasi Daacish hasaatee Puntland ayaa sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin go'aankan ayaa cabsi walaac xoogan ka dhaliyay odayaasha iyo nabadoonnada ka soo jeeda tuulooyinka lagu amray inay ka guuraan dhulkooda kuwaas oo sheegay in dadka deegaanka ay ku jiraan xaalado abaareed oo culus isla markaana aysan haysanin awood ay kaga guuraan dhulkooda guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa wararkii waad kala socoteen warbaahinta Hiiraan online nabad iyo warsan